السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو أفن أكاديمي. waxaan guda jirnay koorskeeni ahaa Basic of Computer. waxaan soo qaadanay 3 cashir oo kamid ah koorskeeni, midkaana waa cashirkeeni afraad. haddaadan soo qaadan 3 cashir ee hore, markaa knowledge-na qaadi kartid oo waxaan sheegaynana ma fahmi kartid. isku day marka inaad soo qaadatid marka cashirkeeni afraad ee Basic of Computer. waxaan ku qaadanaynaa waa maxay markaa shortcut, muxuu yahay shortcut iyo sida loo abuuraa shortcut. shortcutku waa markaa inaad isticmaasho shortcutyo keyboardka ka mid ah. tusaale oo kale markaa adoo isdhibin in adigoo aad bixin oo computerkaaga muuska aadan qaadin oo halkaa aadin, in sheyga aad rabto si fudud aad ku samaysato. tusaale oo kale marka shay aan copy dhahayo, cashirka hore waxaan kusoo arkay in sheyga aan dul tago kadibna aan right click ku dhaho, kadibna markaa sheygaas aan copy dhaho, kadib aan markaa halkaan aado, kadibna aan paste dhaho. sidaa arkaysa wadadaas marka waa wado aad u dheer oo inaan muuskii qaado sheygii aan markaa copy aan dhaho. iyo marka tusaale oo kale aan rabo in sheygaan aan dib u celiyo oo yacni ay tahay shay aan qalad ku galay, waxaan soo qaadanay in aan iska dhihi karo marka undo oo sheyga iga naqanayo, kadibna haddana halkaan inaan imaaden aan ahayo redo. marka waxaa la dhahaa shortcut. tusaale oo kale hadda sheygan inaan undo dhahaa rabaa, anoo markaa right click sameyn waxaan qabanaya keliya keyboardkayga qeybihiisa kala duwan 2 control ama 2 button oo kamid ah. labadaas button oo kala ah midka ay ku qoran tahay control halka ay kusoo saaraya qaabka uu egyahay, iyo midka markaa ku qoran tahay xarafka Z. markaa qabto sidaa arkaysid wuxuu ii sameeyey markaa undo ayuu ii sameeyey oo dib ayuu u celiyay. marka waxaan rabaa marka inaan redo ku sameeyo, haddana waxaan qabanayaa markaa control, kadibna waxaan qabanayaa haddana y. sidaa arkaysid markaa dib ayuu wuxuu u sameeyey redo. marka copy and paste sida loo sameeyo asna hadda waxay ahayd markaa copy dhaha inaan fileka dul tago, kadib right click aan ku dhaho, kadib aan copy soo dhaho. marka anoo wadadaas dheer aan marin aan rabaa inaan samaysto copy. sida u samayn karaa marka muuska waxaan dul geynayaa markaa sheyga aan rabo ama sheyga aan rabo ayaan xaalad gareynayaa. sheyga rabo marka xaalad gareeyo anoo isdhimin waxaan qabanayaa control C. marka control C aan qabto sheyga markaa copy ayuu yahay hadda oo meel aan paste kula yareysanaya. tusaale kale halkaan aan iska imaanayaa, kadibna waxaan leeyahay control V. markaas sidaa ayaa u isticmaali kartaa shortcutyada. waa marka inaad qabato keyboardkaaga button ka mid ah, marka shaqadii dheer aad qabanaysidna marka inuu kuu fududeeyo. marka waxaad samayn kartaa tusaale faalyashaan aad samaysay oo kale waxaad samayn kartaa shortcut oo waxaad ku xiri kartaa shortcutyo oo marka waan arkaynaa shortcutka sida wax loogu xiro. waxaan imaanaynaa halkan, kadib waxaan ku leenahay right click, kadibna waxaan kasii aadaynaa new, kadib waxaan kasii aadaynaa marka halkaan ay ku qoran tahay shortcut. sidaa arkaysid wuxuu sameeyey shortcut, calaamadii shortcutkana wuu saaray. kadib wuxuu ku leeyahay marka itemka aad rabto inaad shortcutka u sameysid halkan ku qor marka itemkaas. marka waxaan leeyahay itemka aan ii browse garee oo markaa browse ku sameey oo computerkayga qayb kamid ayuu yaalaa, waan soo doorana. marka browse markaan dhaho wuxuu ii soo saarayaa qeybaha kala duwan ee computerkayga. kadib waxaan kasii dooranayaa markaa desktop markaa ka doorto wuxuu ii soo bixinayaa waxyaalaha desktopka yaalo. sidaa arkaysid marka waxyaalaha desktopka yaalo waxaa kamid ah markaa all copy-yadan. waxaan rabaa hal kamid ah inaan u sameeyo markaa shortcut. tusaale midka ay ku qoran tahay all ayaan waxu sameynayaa shortcut, all ayaan ku dhufanayaa, kadibna waxaan leeyahay then okay, kadibna next ayaan leeyahay. magac ma ku bedelaysaa ma ku dhaafaysaa ayuu ku leeyahay marka adiga ayaa dooqaaga og finish iska dheh. sidaa arkaysid marka hadda itemka ay ku qoran tahay all ma lahan markaa wax shortcut ah, halka midkan uu leeyahay calaamad yar ee shortcutka. hadda midkaan marka shortcut waan u sameeyey, laakiin weli maan dooran number gaaban oo markaa aanu adeegsan karo. sidaa u doorto markaa numberadaas waxaan dul tagayaa filekii aan shortcutka soo sameeyey, kadib dushiisa waxaan ku leeyahay right click. markaa fileka dushiisa aan right click ku dhaho waxaan ka dooranayaa markaa halka ay ku qoran tahay properties. markaan properties kasoo doorso wuxuu ii soo saarayaa wajiyaashan kala duwan. waxaan kasii dooranayaa marka adoo meelahan uu ku joogo waxaa kasii leedahay marka shortcut markaa ku dhufato. sidaa arkaysid halkan waxaa ku qoran markaa shortcut key, furaha shortcutka. sidaan doorto markaa furaha shortcutka aan rabo halkaan ayaan click ku siinayaa oo ay ku qoran tahay none. kadib waxaan qabanayaa markaa furaha aan rabo. tusaale oo kale hadaan qabto control,
kadibna alt ayuu igu darayaa. Kadib markaa alt ayaan la qabanaya, kadib xarafka aan rabo ayaan markaa taabsanaya. Tusaale kale waxaan rabaa control alt z marka la taabto inuu isoo furo markaa filekan. Waxaan leeyahay markaa control alt z markaan dhaho kadib waxaan leeyahay apply, kadibna waxaan leeyahay markaa okay. Marka filekan waxaan rabaa hadda anoo muuska aan dulgeyn oo aan click ku siin ama open aan dhihin inaan furo oo aan isticmaalo shortcutyadii aan soo sameynay. Marka waxaan isla taabanayaa control alt iyo z. waxaan rabaa markaa inuu filekan si directory oo isoo furo. Si arkaysid markaa wuxuu soo furay filekii markaan qabtay control alt z. markaa shortcut waxa lagu magacaabo waan aragnay, sida loo sameeyana waa aragnay. cashirkeeni maanta halkan ayuu ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. subxaanaka allaahumma wabihamdika astaghfiruka wa atuubu ilayk.